waxay halkan aan isugu wada nimid in aanu markaasi aanu weydiino amaba aanu ogaano xaaladeeda haddii markaa ay hadli karayso waxaan doonayaa in aan weydiiyo Amardol caawa xaaladeedu sida ay tahay. waa xanuunsanahay laakiin alxamdulillaah insha Allah tayda haday gelin waa ka kacaya ilaah baan ka baryeynaa inuu ilaahay ka kiciyo dad fara badan ayaa markii ay daawadeen barnaamijkii hore u baxay ayaa markaasi ay ku soo duceeyeen dad aad u fara badan waxa ay markaasi jecel yihiin ku soo caawiyaan wax ku soo tiraan marka maxaad oran lahayd daawadayaashaas ummadayda Soomaaliyeed shacab haday noqoto dawlad haday noqoto wixii caafimaadkayga inay ay caawimo ay fidiyaan ilaahayna ha caawiyo intaas aan leeyahay dhammaan daawadayaashu waxay doonayaan iyo waliba dadweynuhu inay ogaadaan waxyaabaha aad u baahan tahay muxuu dhakhtarkii ku yiri maxaad kala kulantay waxaan u baahanahay in kali cusub la ii geliyo wadnahana operation la ii sameeyo kuwa jarmalka waa la xiriiray waa gabar la shaqaysaa maxay u dirtay email gabadhina waa tan way ila joogtaa hadda waxay ku yiraahdeen wadnaha operationkiisa iyo kelida oo aan u gelino waxay isku noqonaysaa $100,000 hadalka badan ma karaayo ma hadli karo hadalka ku daalaya hadda waxa ay hadlaysaa gabadhan wariyaha ah Amina Dhufays